Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo akhlaaq wanaagga iyo nabiga sallallahu calayhi wasallam. Akhlaaqda wanaagsan wuxuu ku tilmaamay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda fiican. Waa tiirarka ugu weyn ee dhismaha aadanuhu ku taagan yahay. Akhlaaqda wanaagsan waana aasaaska iimaanka. Sababaha ugu weyn ee jannada lagu galo waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan. Akhlaaqda wanaagsan waxaad ugu dhowaanaysaa qiyaamaha. Nabiga sallallahu calayhi wasallam camal la qabto oo ilaahay loogu dhowaadana waxaa ugu wanaagsan akhlaaqda fiican. Abu Hurayra waxaa laga wariyay nabigeena sallallahu calayhi wasallam ayaa mar waxaa la weydiiyey waxa ugu badan ee ay dadka jannada ku galaan maalinka qiyaame. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku jawaabay alle ka cabsiga iyo dabeecadda wanaagsan. Marka lagu leeyahay dabeecadda wanaagsan waa la dhaqanka dadka kale kala dhexeeyo noocuu yahay. Waxaa sidoo kale laga soo wariyay Cabdullaahi bin Mubaarak akhlaaqda wanaagsan asagoo ka hadlayo wuxuu yiri barashada akhlaaqda wanaagsan waxay igu qaadatay 30 sanadood, barashada aqoonta kalena waxay igu qaadatay 20 sanadood. Halkaas waxaa ku cad aqoon aan akhlaaq lahayn in ay la mid tahay amaba tahay beer roob ku da'ay oo wax miro ahna dhalin weyday. Sababaha akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah wadno nadiif ah. Markaan ku leeyahay wadno nadiif ah waxay la micno tahay sida nafsadaada wanaagga ula jeceshahay qofka walaalkaagana wanaagga ula jeclow iyo run sheegid, daacadnimo, deeqsinimo, ballanqaad iyo waxyaabo badan oo halkaan ugu soo koobi karin. Marka aan ku dadaalno akhlaaqda wanaagsan insha Allah. Assalaamu calaykum.